en liten stund. Jag har lyssnat på er en tag och har fått översatt. Och jag ska säga att för min del lovar jag att vidarebefordra det ni har berättat om profeten Mohammed till mina svenska kamrater. Och jag tycker att fler borde höra det här. För att det är ju så att krig och elände, det gör människor mot varandra, inte religioner. Så är det. Jag representerar ju Socialdemokraterna och jag är extra glad att få vara här. Och jag har besökt er flera gånger. Dels under valrörelsen, ett par möten här, men framförallt flera gånger i moskén. Det var väldigt bra möten. Det som finns i hela mitt hjärta just nu och framförallt när jag åkte till er, det är de fruktansvärda händelser som äger rum i Libyen just nu. Under tiden jag åkte hit, då kom de första bilderna och de var fruktansvärda. Det var bilder där man skjuter från höga hus på fredliga demonstranter. Där många mördas för att de vill ha demokratiska fri- och rättigheter. Och det var det värsta jag sett på väldigt länge. Egypten, Tunisien och andra länder har kommit lite längre och jag hoppas att det blir en fredlig utveckling. Och jag skäms över att den svenska regeringen inte har sagt mer och protesterat mer om vad det som sker i dessa länder. Jag är mest här för att prata om en helt annan sak, men det hänger samman. För många av er kommer ju från länder där demokratiska fri- och rättigheter inte existerar. Av de skälen är ni ju i många fall, det är därför ni är i Sverige. Det som sker i Sverige nu är något väldigt egendomligt. Det är att vi måste rösta en gång till i den norra delen av Örebro kommun och också i Västra Götaland. Du kommer från Göteborg. Ja. Hela Västra Götaland ska också rösta om. Och det har att göra med några små fel som är gjort i valet. Och vi är noggranna i Sverige. Har det gjorts fel så måste man göra om. Och jag måste säga att jag är stolt framförallt vad som hände i Vivalla under valrörelsen. Det var att det var så många som röstade. Och det var så många fler som röstade än valet dessförinnan. Och därför vädjar jag till er nu. Och nu är det inget partipolitiskt tal från mig, utan det är mer som en representant för demokratin i Örebro och i Sverige och Västra Götaland. Att återigen gå och rösta. Det ser ut som att valdagen blir den 15 maj. Och det är klart, ni kommer att träffa mig och många andra politiker en gång till i norra delen av Örebro kommun. Och i Vivalla handlar det om att hålla uppe rösttalet ytterligare. Och jag vädjar till er att ni som har möjlighet att påverka alla som kan rösta, att de röstar en gång till med tanke på de situationer som vi ser i övriga världen, att det är en både rättighet och en skyldighet att rösta. Och det är mitt budskap till er. Och jag måste säga att jag är tacksam, och jag är tacksam framförallt till dig som har översatt. Jag har lyssnat på vad ni har sagt ikväll. Och det har gått till mitt hjärta, och det ska ni veta, att det här budskapet om profeten som ni har gett mig ikväll, den har gett mig väldigt mycket. Och jag hoppas du också vill säga något och sammanfatta det här. Ja, gör det. Okej. Horta runtii ninkan meesha wuxuu u yimid waxay ahayd maaragtay inuu bal dhageysto dadkina la hadlo. Wuxuu ka tirsan yahay koox qaabishan doorashada iyo maaragtay inay dadka doorashada ka wada qayb qaataan. Laakiin runtii inta wada joognay runtii wuxuu dhowr jeer ugu yiri iga jooji macnaha waxaad igu wad علشان hadalkan u fasirayay oo waxyaabihii ay akhrinayeen qaasatan markuu walaalkeena bilaabay Soomaaliga Carabiga xogaa waa laga fiican yahay intaan karaan u sheegay marka runtii way taabatay marka waxa noo dhaxeeya waa xub yar marka alxamdulillah wuxuu yiri waxaan ballan qaadayaa inaan dadka gaarsiiyo idin kan u sheegay dadka u sheegan dhahay hadaad gaarsiinayso
marka waxa meesha hadalkiisa haddaan soo koobo waxay ahayd wuxuu ka macadceshay sababta macnaha meesha casuumada lagu casuumay wuxuuna sheegay maaragtay aad inuu uga xun yahay dhibaatooyin ka dhacaysa wadamadeennii sida Liibiya oo kale uu tilmaamay oo runtii uu hadda sheegay in dadkii la iska tooganayo bilaa macna loo dilayo sidoo kale Masar uu sheegay Tunisia uu sheegay waxyaabaha ka dhacay علشان dadka xurriyadda ay u leeyihiin xaq ay u leeyihiin inay wax doortaan inay xaq isku hogaamiyaan wuxuu sheegay in gobolka West Yorkshire sida macnaha West Yorkshire lagu celin doono wixii meesha ka yimid ay tahay Orebruna lagu celin doono qaybteeda waqooyiga waxa ay bilaal ugu weyn tahay marka runtii wuxuu sheegay inay muhiim tahay in la codeeyo lagana qayb qaato arrintaas wuxuu kaloo amaanay wuxuu yiri doorashadii hadda dhacday hadda lagu celinayo ka hor runtii dad fara badan ayaa wax doortay inta badanna waxa waaye dadka wadamada kale ka yimaada doorashadu kama qayb galaan meelaha ay ku badan yihiin aad u yartahay laakiin wuxuu aad ugu riyaaqay oo aad ugu farxay in dad fara badan ay doorashadaas sameeyeen tan hadda kale on rabay isaga inaan weydiiyo waxay tahay dad baa jira doorashadii hore aanan ka qayb geli karin maadaama ay muddo yar ay joogeen waddankana waxaa lagu doortaa qofku waa inuu 3 sano joogaa 3 sano markuu qofku joogo wuxuu dooran karaa gobolka iyo degmada baarlamaanka waa qofku inuu dhalasho Swedish haysto ma xataa qofka hadduu 20 sano joogay oo uusan dhalasho Swedish haysan ma dooran karo marka taas waxay ku xiran tahay dhalashada waddanka marka intaasaan weydiiyey marka dabcan taasna waxay tahay waa la ogol yahay qofka hadduu buuxiyey 3 sano uu markii hore uusan buuxin doorashada markii dhacay September bisha May soo socoto xaq u leeyahay inuu doorashadiisa baxso marka taas waa baasanta aad iyo aad u mahadsanyihiin waa muhiim in la codeeyo waa muhiim qofkii bil ka hor soo degay waqtiga doorashada ay dhici doonto bil ka hor qofkii soo dego xaafadda Bibala waa inuu codeeyo codadkii ugu badnaa ee laga codeeyay Bibala sanadkan doorashadii hadda yahay waxayna sababtay in la aqbali waayo Bibala wixii ay dooratay oo dib loogu celiyo marka ha ka daalina cid walba ay u soo dhacdo warqadda ay ku qoran shartay waxaan isugu nimidna aan garanayno shariicada islaamku waxay ka qabto horta qof walba muslim ah waxa uu og yahay nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a'zamu khalqillah nabigeena Muhammad ee aanu kulanay daraadiis in uu yahay ilaahay agtiisa khalqiga ilaahay ahadka ugu weyn una yahay ahadka mutaystay in la tacdiimiyo haddaba marka tacdiiminta nabiga iyo ijtimaaca haddaan isugu alayhi wa sallam ama ay xujaystaan ama dadka caamada oo la wereeriyay ay dadka weydiiyaan war nabiga Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma sameeynin majlis kan maxaa loo sameeyaa maxaa loo sameeyaa majliska la sameeyay maxaa lagu hayaa horta balaadiga su'aasha is weydiin ilaahi subhanahu wa ta'ala waxa uu yiri waf'alu al-khayra la'allakum tuflihun war khayrka sameeya waydu liibani khayrka marka nabi Muhammad uu ku soo gaarsiiyay sallallahu alayhi wa sallam shay walbo qaba haddaad maanta 10 juz oo quraan inaad akhrisan rabto ma khayraad samaysay ama waxa lagu oranayaa nabigu maalinkii 10 juz ma akhrin jirin xageed ka keenta la quraanka la akhriyo waa wax loo ogyahay waxa meeshaan aan ku hayna nabiga Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xuskiisa iyo siiradiisa aan isaga warrano way amaana asaga aan amaanayna way ilaahi iyo rasuulkiisa aan isxusuusinayna way دليل كمرك احتفالك وحاوي أظهر من الشمس أو النهار وحو كم قال بدن هيبة ليرادة حد عادة أمام مال تعب لكن وحمر قلي مع الأسف ضدك الحديث أيان مروا بخلاف لقواين وأن لقواين إن حقيقة الله ينكره نشاعر وكيلها وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل عقلك وحو الرميسان يما وجره إلى لغا يراهدو
maalinta cad ee harka cad taagan